dhibaatan haysata dad kalena ma kori karno waxna lama siiyo wixii la keenan ani ma arki weligeen alxamar wax loo magaajiya waa ka khaylini mar hore ilaa haddana khayli ahayna laakiin weli maxma helin weli dad annagana caawinay xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga nolosha annagaa is caawinna iga raali ah hadalka waa xoogaa waa iga batay ku dadaala aniga boqolaan dhiibaa waanan dheggansanaa wixii markaas aan ka jawaabi karan waan ii jawaabaa iga raali ahaada waa joojiye warkii idinkaan ii dhaafi maanta waxaan u joognaa inaan kala wareegno dowladda walaalaheena ee Imaaraadka Carabta deeq raashin ah oo ka kooban 26 konteenar oo isugu jirta raashinka qutul daruuriga noocyadiisa kala duwan kaasoo ay ugu talagaleen inay ku garab istaagaan dadka Soomaaliyeed xilligan adag ee abaaruhu saameeyeen ayagoo sidoo kale ka jawaabaya baaqi ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble u diray ee ahaa dhammaan beesha caalamka inay soo ajiibaan oo soo gurmad dadka Soomaaliyeed dowladda Imaaraadka ay dowladda ugu horeysay oo runtii markii ugu horeysay diyaarad gargaar soo tobanka ugu dambeeya ama 15 ugu dambeeya sila hataa soo istaago oo ha arko qof kasta min $100 oo ayibo insha Allah ta'ala aragno baashan halaga dhaqaajiyo war ficil yeeshta wad u jeedaan korkiina raashin lagu qeybinooya idinkoo dhaqaale qaba baqaara qabtiin ganacsataa tihiin xooga Allah subhanahu wa ta'ala wadin siiyay sheekh ma u baahnid lacag Imaaraad dhibaatan haysata dad kalena ma kori karno waxna lama siiyo wixii la keenan ani ma arki weligeen alxamar wax loo magaajiya waa ka khaylini mar hore ilaa haddana khayli ahayna laakiin weli maxma helin weli dad annagana caawinay xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga nolosha bismillaahi raxmaani raxiim kulanti waxaana wanaagsan dhammaan khayrta sharafta leh ku xiran channelkeena Bender Media meel kasta aad joogtaan waxaan idin leenahay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu ramadaan kariim isku soo noqod wanaagsan walaalahayga sharafta leh ku xiran channelkeena Bender Media markasta waxaan idin leenahay Allah subhanahu wa ta'ala idin xifdi markasta joogtaan gudaha dalkeena iyo dibaddaba insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa inuu Allah subhanahu wa ta'ala nagu gaarsiyo bashbashi barwaaqo soonka aan soomayno Allah subhanahu wa ta'ala oo naga aqbalo آمين إن شاء الله تعالى. أنت كدب وحن روا عاو إن سوق دي برنامج خاص أنا قلت لك ولا عليك رير بنادر أما قوميدها بنادر مركز تيجوجان أيان روا إن الله هضلم هدو الله بود الله إدم ولا الكيجا خدية بنادري وكل جن أما هايستو أما أمين سن وحن كعصنا هديس برنامج كوسو جار ولا غير لها كوسيو sidoo raqsiyaha badan ku sheer garay gaarsii qof kasto ataqaan insha Allah ta'ala hadii aad tahayna samafala Soomaaliyeed hadii aad tahayna walaal samafal waxaan ka codsanayaa barnaamijkan waxa uu talagalay walaalaha dhibaataysan ee jooga magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ee ku dhibaataysan ayaan rabnaa inaan khaldaan u sameeyo hadii ku soo gaaro adigan waxaan ka codsanayaa inaad gaarsiiso walaalahayga Soomaaliyeed ee barnaamijkan raba inaan u diro fariintan insha Allah ta'ala inta haddaan kaga soo gudbo waxaan xogaa yar daawanay filmaad kala duwan ama filmo kala duwan kilibyo kala duwan ayaan daawanay oo ka mid ahaa deeqaha loo soo dhiibay ra'iisul wasaare Maxamed Roble ee la raba in la gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed oo ugu yaraan hadda koorna diyaarad lagu keenay haddan ugu dambeysay ugu yaraan markii shanaad haddana alaab intaas oo 26 container oo raashin la keenay ayaan rabaa inaan ka hadlo haduu Allah wadaneedmo waxaan kala dhageysanaynaa aabaheena aaba muriidi codkiisa asagana ku sheegayay in anaga wiligeena dhaqaale la soo diray ama deeq la soo diray reer banaadir loo soo diray ama Soomaali loo soo diray oo banaadiriga la soo gaarsiiyay habeenkii xalay tagay waay marka waxaan rabaa inaan kala saaro marka fariintan waxaan u dirayaa laba qayb ayaan u dirayaa midna waxaan u dirayaa dadkii alaabta loo soo dhiibay oo ka mid ah ra'iisul wasaare Roble ayaan rabaa inaan fariintan u soo diro aan gaarsiiyo insha Allah ta'ala hadii aad tahay saaxiibka ku xiran ama Roble ku xiran gaarsii aniga insha Allah ta'ala waxaan ku dadaal inaan gaarsiin doono waxaan rabaa inaan dareensiiyo Soomaalida loo soo diray hantidan la soo diray maxaa u diiday in la gaarsiiyo reer banaadir ayaa su'aashaas waxay ku socotaa reer banaadir ay ka socotaa waxaan ku socotaa walaalkeena ama ra'iisul wasaare Roble iyo nabaaxigeeda ama cilada qolada gacanta ku hayso in xaqiiqatan aabaha Soomaaliyeed reer banaadiriga ahaa aaba muriidi waxaad ka dhageysanaysaan hadaladiisa oo ku jiray in
wiligeena reer banaadir aan la soo gaarsiinin deeq loogu talagalo soomaalida degan gudaha dalka gudihiisa iyo dibadiisa ay degan ama gobolada ama degmooyinka deganaa ee reer banaadir haba yaraatee lasoo gaarsiin ma jirta ayuu afkiisu ka dhawaajiyey waatan hadda aad arkaysaan waad arkayseen hadda waxaan arkayay deeqa la soo diray oo loogu talagalay soomaalida loogu talagalay maxaa u diiday in reer banaadir la gaarsiiyo waa taas hor su-aal meesha taagan lana rabo reer banaadirka jiifa inay usoo jeestaan reer banaadirka jiifa inay usoo jeestaan oo su-aal isweydiiyaan qofka bini aadanka markuu su-aal isweydiiyo ayaa waxay usoo bixisa jawaaba usoo bixi karaa laakiin haddaad su-aal isweydiinin oo gurigaa ugasha u baxdid oo adiga dhanba adin xisaab isxisaabinin waxaa laga yaabaa meesha u socotid iyo meesha aad aadaysid inaad aqoon u lahayn laga yaabaa laakiin qofka markuu baxaayo uu ku xisaabtamo aleele meeshaasaan aadaa saacadaasaan u soconaa kadibna saacadaasaan usoo laabanaa intaasaan soo sameynaa markuu qiimeen uu sameeyo wuxuu ogaanayaa saacadda uu maqnaanaya saacadda uu soo laabanayo iyo howle uu qabsan lahay haddii allah subxaana wa tacaala u fududeeyo haddaba maanta waxay taagan tahay walaalaheena soomaaliyeed ee banaadiriga ah ee ku nool magaalada muqdisho in raashiin la keenay loo qeybiyey hay-adaha samafalka ay qeybiyeen intaas konteynara la qeybinaya calaa nafar waxaa kusoo aadaya ugu yaraan loor bur loor bariis ah loor sokor ah intaasoo saliid caaga saliid ah timir ayaa la siinaya ama qoyskii aa la siinaya annagana waad arkayseen guddoomiyaha degmada xamarweyne siduu baalasha nagu rifay wuxuu raali ka naqday in degmada waabee degmada xamarweyne in loo qeybiyo raashiin la kariyey oo guri lagu soo kariyey oo haddii alla subxaana wa tacaala ku idmaaday oon xataa reer banaadirka rasmiga aanan ahayne dad magaalada iska jooga loo qeybiyey la dhahayo degmada xamarweyne u qeybinay walaalayaal intee idinka martisamo aawe wanaaga reer banaadiriga ah caadaariga ah oo akhligiis shaqeynaya aawe walaalayaal adduunyadan waa laga tegaa xaqiiqatan ramadaankan barnaamijna usoo fariiso oo ma aanan talagelin laakiin codsi layga soo codsaday oo lagu yiri bandar media waxay u qeylin jirtay walaalaha dhibanaha ah ee u qeylin jirtay maxaa diiday maanta inay ka hadasho bandar media wallahi aan ku dhaartay waxaan aad iyo aad uga xugnahay saacadda idin la hadlayo waxaan u fariisan jiray ictikaaf ayaan u fariisan jiray talaado taraawix markaan kasoo baxay ictikaaf ayaan u fariisanay waxaan u joojiyay caawe inaan ka qeyliyo u qeyliyo walaalahayga banaadiriga ee ku nool dunida dacaladeeda walaalayaal ood u jeedaan walaalaheena soomaaliyeed ee banaadiriga ee ku nool wadankeenu ku noola wadanka degan inaysan haysanin cid u taagan aysan jirin waxaan u ololeynayna muddo aan u ololeynayna in xildhibaana aan ololeynayna andhayna xildhibaanada hala rido xildhibaano kale hala keeno waxaa meesha ka soo baxay cagsiya ka soo baxay wanaagii aan raadinayna wax kala yimid xataa xildhibaanadii la doortay haddii isxoreyn lahaynata sanadkan dadkii u qeylinaya oo intaas waqti gelinaya xataa ramadaankan hadday afursiin lahaynata waxbay ahaan lahayd waxaa ka daro dibidhal ayay naqatay waxaa loo sameeyey xaflado ayaa loo sameeyey oo ayaga lagu soo dhaweynayo walaalka xafladaha sameynayo waxaan idin sheegaynaa walaalayaal qofka markaad soo dhaweynaysid waa inaad ogaataa karaamada uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay iyo wanaagga uu leeyahay inaad ogaatid laakiin maanta waxaan aad uga xognahay lacagaha la bixiyey ugu yaraan kumanaan lacagaha la bixiyey oo xaflada lagu bixiyey xafladaha lagu bixiyey dadaa yani lagu martisooray intaasoo raashiin ayaa la bixiyey maskiin reer banaadir ahna wuu gaajaysan yahay shingaani uu degan yahay wuu gaajaysan yahay xamreen uu degan yahay wuu gaajaysan yahay shibis ayuu degan yahay wuu gaajaysan yahay waa beri ayuu degan yahay wuu gaajaysan yahay walaalayaal damiirka intuu idinka aaday damiirka bini aadam intuu idinka aaday subxaana maalika alquduus war adduunyada waad ka tagaysaan ilaah subxaana casa wajal ayaad u laawanaysaa waa laydinku xisaabtamaa waxaad samayseen waa laydinku xisaabtami doonaa xildhibaanada aan dooranay oo hadda xilka loo dhiibay ayagoo shaqo aan gelin lacaga ayaa jira kambeyn loogu talagalay oo lacagahaas kambeynka aanan qarash aan ku bixin intay geysan lacagtii loogu talagalay haddii aad walaalka wanaaga raba aad tahay Soomaali waxay tiraahdaa geelka yani yaraantiis la kasi way weynaantiisna wax uma soo saaray yaraantaada la doonaya inaad wax tahay sheekh haddii aad tahay qof waxtar aad tahay xusaabka cusubta waxaan sugayay sanadkan inta waxaan u aamusnay bandar media badana ma aamusna anaga waxaan u aamusneen waxaan islahayn walaalaheena maanta cusub ee la soo doortay ee isbedeldoonka ah ee isbedelkii Allah subhanahu wa ta'ala u khadmay Allah subhanahu wa ta'ala u idmay inay yiraahdaan inay dhahaan maanta anaga xafladaha aan lacaga nagu sameyn lahay waxaan aad iyo aad u jeclaan lahayn maanta in lacaga la isku keeno la isku geeyo oo walaalaheena masaakiinta dhibaataysan waxba aan haysanin loo khidmeeyo la siiyo aan sugayay laakiin waxa meesha ka timid waxyaalo cagsigeeda ayaa ka dhacay in muusiga la tumo lagu garaaco iyo lacagii lagu tunto oo masaakiinta dhibaataysnaa ee la rabay in xaqooda la rabayna in loo dadaal la rabayna isla hadda lagu bilaabo in lagu tunto walaalaha reer banaadirey waxaan idin sheegaynaa wajiif waad jiiftaan xaqiiqatan hurda dheer ayaad ku jirtaan wallahi xaqiiqatan waxaan xasuustaa sanadka hadda la soo dhaafayay waxaa jira qolo ayaa istaagay oo filinka aad daawanayseen zoom ayaan samaynay oo ugu talagalay walaalaha reer banaadir in loola qidmeeyo aawo walaalihii shaqaynaya xagaay maad aheedeen xagaay hal maalinaad howl qabateen waad seexateen faa'iidada ka soo baxday waad aragteen sheekh waad aragtay intaas qofood ayaad quudiseen
hadda waad ujeedaa lacagaa la soo diray leeyahay raashiinaa la soo diray imaaraadka lacagtaas laga soo diray leeyahay haddana waad ujeedaa gudoomiyaha degmada xamarweyne wuxuu qaybinayaa raashiin bax ku jiro tuman bariis la kariyey iyo xabad moos ah iyo waxaan naf lahayn oo raashiin loo qaybina subxaana maalikal qudus reer banaadir aad iyo aad ayaa loo liiday wax kalan maana ayagaa is liiday oo yaa khadka iska bixiyey waad ujeedaan dadkan kalimaad ka liidana anaga hay-adahan lacagaha loo keenay oo raashinka la siinay ma ka liitaan reer banaadir sheekh kama liitaan waa dadka kaliya xaqa u lah oo xadaariga in la siiyo reer banaadir way xishood badan yihiin sheekh waxaa la ii soo diray dhowr qofood oo masaakiina la ii soo diray oo wallahi wajiyada markaad aragtay ka aadan indhahaaga biyaha ka istaajinaynin waxa maanta ii soo fariisay ay ka mid tahay walaalaha jira guryooda ku gaajaysan sheekh walaalaha jira guryooda ku gaajaysan oo aanan haysanin xataa galaas biyo aanan haysanin hooyaan arkay dhaysi caawa waxaan ku afuray qaxwo kaliyaan ku afuray subxaana maalik alquduus adigana waxaad cunaysaa sambuus iyo bur iyo baji iyo balaay iyo aad isku laaqisaa miyaysan sun kugu ahayn sheekow miyaysan sun kugu ahayn walaalka la doortay hadda xildhibaanka noo ah miyaysan sun kugu ahayn maanta gurigaaga dhabarkiisa waxaa ka gaajay guriga qolaa gaajaysan aan waxba haysanin qolaa gaajaysan oo maanta gurigooda waxba laga shiday sheekh dabka laga shiday reer banaadir aad ayay xishood badan yihiin war damiirka intuu idinka aaday aaba aqoon-yahanadii reer banaadir intay aadeen aaba ganacsatada reer banaadir xaggee aadeen ilaahay ka baqa waa lacagtan waad haysataan waa lagu xisaabtami doonaa good ayaa lagu gelinaa maraa lagugu qaada waa lagu geynaa sheekh adduunyadana lagaa qaada adoo ewerkaaga ah qaawena lagu qaado oo mara cad lagugu daboolay hadda maanta waxaan taaganahay in dhabarkeena dambe qole inay raashin qeybiyaan oo la siiyo bur iyo bariis iyo sokor iyo intaasoo timir la siiyo masaakiinta reer banaadirka ahayna xataa galaas biyo aan la siinin dhowr qofood oo albaabada laga soo qaatay oo xaafadaha laga soo aruuriyey walaalkii gudoomiyaha degmada xamarweyne oo asagan isticmaala igu sabirkii la isticmaali jiray ayuu isticmaalaya gudoomiyaal badanaa soo dhaafay oo dhammaantooda markaad facebook aad geshid ood arkaysid ayagoo shaashad saas wax u dhiibaya asagoo saan sameynaya ee kaamira laga dawado walaalayaal adduunyadan ma ahan inaan lagugu sabir wax keliya ma ahan sheekh adduunya maanta waxaad baxsatay aakhir ku badbaadaysaa gudoomiyaha degmada xamarweyne waxaan kuu sheegaa sumcaddii reer banaadir ayaad baalaaj ka riftay aad eber ka dhigtay walaalkayga waxaan ku leeyahay sheekow waxaan ku leeyahay cunug yar ayaad tahay waa ogow in lagula xisaabtami doono qadka waad ka lumuysaa isceli ayaan ku leenahay insha allahu tacaala haddii tabar adoonu haynin oo walaalahaaga reer banaadir aad wax u qaban karin walaal meesha ka dhaqaaq ka tag meesha waxaan arkaya markii odayaashii la doortay guddigii odayaashii maxaa la dhihi jiray xildhibaanadii markii la doortay hadallo ayaa kaa baxaya dhehaysay degmada xamarweyne waa ujeeda dhulkeeda jididkoodu way baaba'san yihiin waxaa laydinka doonaya inaad hagaajisaan sheekh ma ahan adaa lagaa rabaa haddii aad samayn weyse yaa samaynaya adaa gudoomiya degmada xamarweyne ah adaa lagaa raba inaad hawshaas qabatid maanta waxaad soo istaagtay in walaal ka tirsan reer banaadir ah in bax yar oo raashin reer banaadir maba dhihi kara qoladaas banaadir maba deganaba xaafadaha laga soo aruuriyey hal qof reer banaadir oo ku jira ma lahan sawirada waa idin tusay fiiriya hal qof oo reer banaadir kama muuqdo dhammaan waa dad magaalo laga soo aruuriyey haddana magaca reer xamarweyne lagu xamaalinaya walaalayaal khiyaanada aad samaynaysaan adduunyadan wallahi alla subxaana wa tacala waa idinla xisaabtami doonaa maalin kasta waxaan ka qeylna wax kale maahane dhibka lagu hayo banaadiriga ayaan ka qeyl dhaannaa waxaan idhahnaa mar kastaba alla subxaana wa tacaala u baqa dad kastaba cid baa u istaagtay markaad jannadada qaarkood aad tagtid ninba ninkiis ayuu qeyl dhaaminaya waxaan la'nahay anagana dad isbiirid leh oo xoogayna hawsheen noo dhaqaajiyaan la'nahay filinkan samayno cid danaynaysa mala waxay leeyihin war naga daa ma daawanayna wallahi aan ku dhaartaye meel xun gud xun ayaad ku socotaan walaalkaaga haddaadan caawinin alla subxaana wa tacaala awood ku sii berita saa dambena lagula xisaabtami doonaa haddaba hadalkii waxaan kusoo gebagabeynaya insha allahu tacaala qaybta banaadiriga ah walaalayaal waxaan idin leenahay hawshaan la idin dirsaday oo ummadda u istaagtaan oo ummaddiina u shaqaysaan ganacsatada reer banaadirey waxaan idin leeyahay ilaahay alla subxaana wa tacaala ka baqa ilaahay ka baqa alla subxaana wa tacaala hantida idin siiyey waa un imtixaan la idinku dhiibay oo laydin yidhi waa ku imtixaanan tahay arday markuu fasal galaya warqad ayaa loo dhiibaya warqadaas waxaa ku qoran imtixaankiyaa ku qoran haddii maadada uu ka saayo sida uu dhaqsiyaa badan kuu buuxina uu fasalku kaga baxaa hadduusan maadada uusan ka seenina jiq ayay ku naqnaysaa sidaasoo kale hantida lagu dhiibana waxay kugu tahay imtixaan ayay kugu tahay waa lagula xisaabtamaya waxaan filaya insha allahu tacaala walaalaha reer banaadir maanta barnaamijkan usoo gudbinayo inay barnaamijkan ay ka dhiidhiyaan ay u istaagaan inay barnaamijkan wax ka soo saara hadduu allah wadal eedmo waxaan hadalkii kusoo gebagabeynayaa sanadka hadda la soo dhaafay waxaa istaagay walaalo ayaa istaagay reer banaadir ayaa istaagay oo ugu talagalay inay walaalahooda ay quudiyaan oo ka dhiidhiyey dhibaatada haysato ee reer banaadirka ee meelaha magaalada ku daadsan ee waxba aanan haysanin inay taakulaan u sameeyaan aad ayaan ugu faraxsanaa barnaamij aan ka sameynay aan ugu talagalnay inay zoom kusoo dadka aan ku casuuno ay kaga soo qayb galaan wax badanna la qabtay dadaal badan ay sameeyeen waxay ahaayeen xagaay ayay ahaayeen xagaay
waxaan ku naqaan reer banaadirka ciladaha aan ku arkaya waxay kamid tahay qofka markuu rabo wuxuu sameynaya laablakacay kusoo kac wuxuu leeyahay buurtaasaan gujibinaya dhagaxaasaan sameynaya intaan ka baxa ayuu leeyahay markuu hal maalin joogana khadku ka baxaya waxaad arkaysaa ninkii maba ahaanba hadda aabe qoladii daraad barnaamijka sameynayeen qolaa magacay sheegteen oo samafalo isku sheegayeen oo dhahayn samafalaan nahay ma waxaad rabteen kelib inaad shaashada laydinka arka maad doonayseen ma shaashada in laydinka arka maad doonays ama laydin barta kaliya raadinayseen sooma cala alcumuum hadda waxay taagan tahay runtii ay taagan tahay ramadaankii hore teg waa la soo dhaafay walaalaha ka qeyb khuudkaas ka faa'iidaystay sidai doonta ha noqoto qaarka dadka qaarkood waxay noogu sheegayeen si garabeeshin wax loo sameeyey aniga garabeeshin ka taa shaqadeeda maxaa yeele haddii garabeeshin loo bixiyo hataa walaalaha la siiyo walaal reer banaadir la siiyey si doonta loo siiyo ama dhammaan hataa hal qof reer banaadir hadii la siiyo hataa aada ugu qanacsanaa waa kasoo wareegatay sanadkiyaa kasoo wareegtay shacbaana la gaaray waqtigaa soo dhammaaday waxaan sugaya maanta inay barnaamij ay sameeyaan sharqi iyo maqrib u kala baxeen isku duubni maba lahanba isku duubni iyo kalsooni aan lahayninbe walaalihii maalintaas barnaamijka sameynaya walaalo waxaa idin leenahay insha allahu tacaala ee laablakac adduun laguma qabto wax qofka u baahan yahay waa inuu qofka qalbigiisa uu kasoo gaca markuu wax qabanayo waa inuu qalbigiisa kasoo gaca wax uu sameynayo waa inuu alla subxaana wataala dartiisa uu sameeya waa inuu alla ka cabsi ee korkiisa ay ku jirtaayo oo dadka damiirkiisa uu shaqeyna damiir shaqeeya in damiirkiisa u lahada laakiin haddii qofka uu yahay ha lagaa arka iyo ha lagaa sheega iyo ha lagu yiraahdo haddii qofka wax ugu yeelayo sida hadda aad samayseen ayay noqonaysaa insha allahu tacaala waad arkayseen walaalo maanta barnaamijkaas markaad sameynayseen walaalo badanaa wax lacaga yaboohay oo rabay lacagood inay bixiyaan baba muriid waad arkayseen $100 dhibiyu leeyahay war $100 maanta haddii la bixiyo 100 qofood min $1 lagu quudin karaa hal habeen lagu quudin karaa haddii maanta la rabo in qof la quudiyo oo dhammaantiin 3,000 maanta haddii la bixiyo 3,000 waxaan samayn karnaa min $1 haddii qofka wax loogu sameeyo ku filan intaas ku filan waad istaajiseen sharqi iyo maqrib u kala baxdeen waxaad naqateen ficil iyo qabiil iyo balaayo jira u kala baxdeen waad kala cararteen ilaan dulmigaab sidiisa ma shaqeynayo dulmiga sidiis ma shaqeynayo qalbigeena kuma usan jirin waxaad ahayn dad iska soo istaagay oo la rabay inay shaashada iska arkaan cala alcumuum waa idin karbaashay wax kale madu ku talagalna idinku karbaasheen waa idin kicinooya xumaan idin xumeynaya maahan waxaan ugu talagalay inaad laba kacdalsaan oo hawshii aad meesha ka bilowda insha allahu tacaala hadduu allah subxaana watacaala idmana waxaan rajeynaya walaalayga inay soo istaagi doonaan aysan ii arkay qaylada idinku qaylinaya inaad xumaad u aragtaan xumaan idaan u arkan ayaan rajeynaya aad soo laba kaclaysaan cala alcumuum 10ka ugu dambeeya ama 15 ugu dambeeya sila hataa soo istaago oo ha arko qof kasta min $100 oo dhiibo insha allahu tacaala aragno bahashan ha laga dhaqaajiyo war ficil yeeshta waad u jeedaan korkiina raashin lagu qeybinooya idinkoo dhaqaale qaba baqaaraa qabtiin ganacsataa tihiin xooga alla xawla alla subxaana watacaala wuu idin siiyey sheekh ma u baahnid lacag imaaraadka laga keenay iyo bariis ceerina meesha lagu qeybay iyo uma baahdin idinkaa ku filnaa isleeya insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa walaalahayga reer banaadir haddii dhiig aad leedihiin barnaamijkan caawa idiin soo gudbinooyo isbedel ayaan idinka sugaya hadduu allah awoodi la idmo saan usoo fariista waaye habeen damben waxaan geli doona hadduu allah awoodi la idmo lacag aruurin aan aruurin walaalahayga masaakiinta ee dhibaataysan ee banaadiriga aan waxba aan haysan insha allahu tacaala ayaan rabaa inaan barnaamij u sameeyo hadduu allah awoodi la idmo barnaamijkayga caawa inta aan kusoo gebagabeynaya waa walaalkiina maxamed xaaji amiin inta kala soo hadlay dalka Netherland magaalada Nijmegen oo idin le maalinta idin qurux badnaato haweenka idin wacnaado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Ramadaan kariim.